waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka ka soconaya dalka Itoobiya qodobada aad daawan doontaan saaxiibayaal waxaa qayb ka noqonaya qaramada midoobay digniin culus ay ka soo saartay dagaalada ka socda waqooyiga dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigray oo xasuuq ba'an uu ka dhacay warbixin ayaynu idinkaga soo gudbin doonaa daawadayaal kufsigii ugu badnaa oo loo geysto haween oo ka dhacay gobolka Tigray iyo xaalad halis oo ay wajahayaan shacabka gobolkaasi qaarkood waa ay isdilayaan dhibaatada soo wajahday darteed waan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal warbixino iyo xogo xasaasi oo la xiriira arrimo fara badan oo murugo leh oo arrintaasi ku saabsan ayaad sidoo kale barnaamijkeena ku daawan doontaan TPLF qayladhaantii u dambeysay waxay u dirtay wadamada reer galbeedka iyagoo ka dalbanaya hub iyo lacag in la gaarsiiyo si ay dadkooda u difaacdaan waan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal qodobadaasi aad bixin ugu soo kordhay inteenu barnaamijkeena ku guda jirno ayaa daawan doontaan balse haddii aad nagu cusub tahay oo markaagii kuugu horreysay ina daawanayso subscribe channelka inoo saar sii share garay muuqaalka oo laag saar sidoo kalena gambaleelka furo si ay mar walba kuu soo gaaraan xogaha aynu halkaan soo gelin oo aad ku mahadsan tahay saaxiib la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba aynu ku bilowno markan dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigray ayaa waxa ay yihiin kuwa markaasi maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya iyadoona baaqyada lagu joojinayo dagaalkaas ee dhinacyadu markaasi loo soo dirayo ay aad markaasi isu soo tarayaan qaramada midoobay waxay markaasi horboodaysaa dhinacyada markaasi doonaya in wada hadal lagu dhameeyo dagaalada labada sanadood ka badan ka socda dalka Itoobiya gaar ahaan waqooyiga dalkaasi ee gobolka Tigray iyadoona sidoo kalena ay jiraan dad dhibaatooyin fara badan ku wajahaya halkaasi qaar kamid ah dadkii gobolka Tigray ayaa barakacay halka kuwa ku sugan ay macluul iyo dhibaatooyin ay ku haystaan isgaarsiintii ayaa laga jaray sidoo kale adeegyadii kale ee nolosha asaasiga u ahaa ayaa ka maqan oo cunaqabatayn ay dowladda Itoobiya muddo markaasi 2 sanadood ka badan ay saartay madaxa xuquuqda markaasi aadanaha ee qaramada midoobay ayaa waxa ay weydiisatay Itoobiya inay ogolaato kormeerayaal yimaada gobolka Tigray si ay baaritaan ugu sameeyaan warbixino markaasi la xiriira dilal iyo rabshado galmo oo laga yaabo in ay ka dhigan yihiin dambiyo dagaal ee gobolka markaasi ka dhacay tan iyo dabayaaqadii 2020 markii uu dagaal ku bilowday dhibanayaasha iyo kuwa ka badbaaday xadgudubyadan waa inaan markaasi loo diidin xuquuqda ay u leeyihiin runta iyo cadaaladda ayay Michel Bachelet ku tiri bayaan ay soo saartay ayada oo muujisay in ay markaasi ka cabsi qabto in xadgudubyadu ay sii socdaan haddii aan la helin baaritaan dibadda ah oo dhab ah dagaal u dhaxeeya ciidamada federaalka Itoobiya ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo kuwa markaasi ururka xukuumadda gobolka Tigray ee TPLF ayaa dilay kumanaan qof kana qasbay boqolaal kun oo kale in ay ka qaxaan guryahooda xadgudubyo daran oo ka dhana xeerarka markaasi caalamiga ah oo ay suurtagal tahay in ay ka dhigan yihiin dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah bani'aadanimada ayaa waxaa suurtagal ah in ay geysteen dhinacyada kala duwan ayay tiri Bachelet oo markaasi ayada oo xustay ciidamada Itoobiya TPLF militariga Eritrea iyo ciidamada gobolka deriska la ay amxaaradu in ay dhibaatadaasi ay geysteen warbixinta Bachelet ayaa waxa ay sheegtay in 136 kiis oo kufsi ah markaasi la soo wariyay intii u dhaxaysay December ilaa markaasi January ee sanadkii hore ayada oo ay jiraan tilmaamo muujinaya kuwa badan oo aan la soo warin waxay sidoo kale xustay kiisaska dilal markaasi ula kac ah oo loo geystay dad shacab ah dowladda Abiy Ahmed maamulka Tigray ee TPLF iyo sidoo kale mas'uuliyiinta amxaarada iyo Eritrea ayaan laga helin jawaab degdeg ah oo ku aadan bayaanka ay soo saartay qaramada midoobay ayada oo goobjoogayaal markaasi ay xuseen kiisas xadgudub ah oo ay ka mid yihiin dilal biliqo iyo xasuuq ka dhana qaxooti ayaa dhinacyada dagaalamaya waxa uu midba midka kale ku eedeeyay dhibaatada markaasi dhacday Abiy ayaa guul sheegtay markii TPLF ay ka baxday caasimadda gobolka ee Makalla dhamaadkii bishii November ee sanadkii 2020 hase yeeshee dagaal hoosaad ayaa ka sii socday meelaha qaar sida ay sheegeen dad ku sugan Tigray iyo qiimeynta qaramada midoobay warbixino laga naxo oo ku saabsan kufsi iyo rabshado jinsi ku salaysan dilal ka baxsan cadaaladda burbur baahsan iyo biliqaysiga hantida dawladeed iyo mid gaar ah loo leeyahay
oo ay geysanayaan dhammaan dhinacyada ayaa markaasi nalala wadaagay ayay tiri madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Mrs Michelle Bachelet. dowladda madaxweyne Asiasias Afwerki ee Asmara ayaa markaasi horey u beenisay in ay wax lug ah ku lahayd dagaalka, halka maamulka Abiy Ahmed ee Addis Ababa uu marar badan markaasi ku celceliyay in uusan markaasi soo celinaynin amarka iyo kala dambeynta. xafiiska Abiy ayaa bayaan uu soo saaray Arbacadii waxa uu ku sheegay in uu baarayo tuhunka markaasi ku saabsan xadgudubida una cadaalada horkeeni doono kuwa geystay dhibaatada markaasi ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ka dhacday gobolka Tigray. Abiy ayaa lagu eedeeyay inuu isagu ka dambeeyo dhibaatada xooggan ee haatan ka taagan gobolka Tigray, xasuuqa loo geysanayo dadka rayidka ah, kufsiga iyo dhibaatooyinka kale ee ka dhacaya halkaasi. waxaa asal u ah baa layidhi Abiy Ahmed oo isagu markaasi ku soo rogay gobolka Tigray cunaqabatayn xooggan tan iyo markii uu dagaalku bilowdayna aanay jirin wax gargaar bani aadanimo oo la gaarsiiyo gobolkaasi Tigray. dhibaatada ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah ayaa waxaa ka mid ah in loo geysto kufsi, dilal joogto ah, dhac xoolahooda la dhaco iyo sidoo kale barakicin xoog ah in markaasi lagu sameeyo. dadkii ka barakacay gobolka Tigray ayaa badankood waxa ay gaareen xuduudka Itoobiya iyo Suudaan, iyadoo dowladda Suudaan ay halkaasi uga dhistay markaasi xiriir qaxooti oo macmal ah, iyadoona sidoo kale mar walba ku goodinaysa inay dib u soo celin doonto maadaama ay ka baqdi qabto in dagaaladu ay xuduudeeda markaasi isla gaaraan. ciidamada Suudaan ayaa la soo warinayaa inay dagaalka qayb ka yihiin oo ay taageerayaan ciidamada jabhadda TPLF si markaasi ay dowladda Itoobiya u joojiso dagaalkana. waxa ay Suudaan markaasi ku cabsi gelinaysaa in ay ciidamadeeda ugu badan soo gelin doonto xadka Itoobiya iyo sidoo kale Suudaan ay wadaagaan. waxaana Eritrea ay dhinaca kale dagaal markaasi kula jirta ciidamada TPLF iyadoo taageeraysa dowladda dalkaasi Itoobiya. Amxaarada ayaa sidoo kale la sheegaya inay taageero weyn u muujinayaan dowladda Itoobiya, waxayna ka soo horjeedaan TPLF oo ay ku eedeeyeen in xasuuqyo wadareed ay ka geysteen kol hore gobolka markaasi Amxaaradu ay degto. waxaana la soo warinayaa haatan in dagaalo culus ay ka soconayaan meel markaasi u dhow gobolka Amxaarada xuduudda uu la leeyahay gobolka Tigray. magaalo ku taala Amxaarada ayaa la soo warinayaa inay gubanayso oo gantaale ay ku weerareen ciidamada jabhadda TPLF, balse TPLF waa ay beenisay in wax xasuuq iyo dhibaato ah ay ka geysteen gobolka Amxaarada. afayeen u hadlay TPLF oo lagu magacaabo Kataaju Reda ayaa waxa uu beeniyay dhibaatada markaasi loo saarinayo ee ah in ay xasuuq iyo dhibaato xooggan ay ka geysteen gobolka Amxaarada. waxa uu arintaasi ku eedeeyay in dowladda Itoobiya iyadu ay ka dambeyso dhibaatada xooggan ee ka dhacaysa gobolka Amxaaradu ay degto. waxaana la soo warinayaa in ciidamada Itoobiya ayagu markaasi duqeymo ka geysanayaan gobolada Amxaarada iyo Tigray iyagoo aan kala soocin. TPLF iyo sidoo kale dadka rayidka ah ayayna markaasi duqeyn in dhalaana ka geysanayaan gobolada markaasi Tigray iyo Amxaarada. waxaa la soo warinayaa in dad rayid oo tiro badan markaasi ay ku dhinteen dagaalada iyo qalalaasaha ka jira gobolka Tigray. gaar ahaan waxaa lagu eedeynayaa Abiy Ahmed iyo xulafadiisa dhibaatada xooggan ee ka taagan gobolka Tigray.